halkani waa mid ka mid ah malcaamadaha qadiimiga ah ee carruurta yaryar quraanka loogu dhigo looxa iyo khadka ee magaalada Hargeysa. Waxa booqday qaar ka mid ah warfidyeenada malcaamadani oo ku taala xaafadda State House-ka ee magaalada Hargeysa. Waxa warbixin siiyay macalinka ardaydan yaryar wuxuu dhigaa warfidyeenka waxaanu sheegay in ardaydan yaryari ay ku fadhiistaan dhagaxaan iyo daasado isla markaasna uu baaq u diray dawladda Somaliland iyo shacabka Soomaaliyeed ee samafalka jecel in ay wax la qabtaan ardaydaas yaryar ee quraanka loogu dhigo looxa iyo khadka in la taakuleeyana ugu baaqay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniga Cabdullaahi Yuusuf Xuseen macalinka looxa ku dhiga waxaan soo dhaweynayaa qoladan TV-ga ee noo timid baan soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan lan leenahay ma sha Allah haddaan iyalkan warbixintiisa idin siiyo waxbarashadoodu waa looxa iyo khadka weeyaan aad bay u wanaagsan yihiin wixii wax lagu baran jiray weeyaan asalka ah ee saxda ah ardaygu marka uu alifka iyo xarafka iyo looxa iyo khadka uu wax ku soo arko wuu fahmayaa si dhib yarna wuu fahmayaa ta waxbarashada ardaydu waa sida ta kaleeto de waxa weeyaan dadka hadan yartay jingada yar hoosteeda ku dhigtay bariga horgeed baan ku dhigi jiray kadib jingada yar baa loo dhisay jingada yarna ma dhamaystirna waxaan codsanaynaa in wax loo qabto dadka ardayda quraanka Ilaahay dhiganaya in wax loo qabtaan codsanaynaa waxa weeyaan baahiyaad u baahan yihiin waxa weeyaan qodobka koowaad waxa weeyaan mala jingadu telefoon male sibir male quraasi male ma qaadaysa ardayda waxay u baahan tahay jingada yar in loo nidaamiyo hadii wax ka weyn loo heli karana alxamdulillah rabbil caalamiin way ka si fiican tahay imaka laakiin jingada in loo nidaamiyaan u baahanay ardaydu waa arday fara badan ilaa 390 arday weey ardaydu waxay u baahan inamay u badan yihiin ma jira dad quraanka dhameeyay halkan ka baxay waa jiraan masaajidka dadka taraawiixda iyo waa rag malcaamada ka baxay weey quraanka soddonka juz quraanka xafiday baa ku jira. sidoo kale waxaa la hadlay warfidyeenka mid ka mid ah waalidiinta ay carruurtoodu dhigato madrasadan. Aanu ka soo bilaaway loox baan ku dhignaa anu jaajuur kaas aanu ku fadhinaa biyihina waa kuwa adarka saro biyan meesha kuma hayno waa biyo la'aan marka waxa weeyaan carruurta wixii ummadaha islaamiga wax qabsanaya ayaa meesha yaala. waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV magaalada Hargeysa.